ayaa ku geeriyootay 5 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyay walxaa qarxa maanta uu ku qarxay meel wadada dhinaceeda ah oo ku dhow isgoyska shaqaalaha wadada Makaal Mukarrama ee magaalada Muqdisho. dadka geeriyooday waxaa ku jira qofkii saarnaa gaari qarxay oo nuuciisu ahaa Karib waxaana dadka kale waxyeeladu gaartay ahaayeen dad rayida oo ka agdhawaa goobta qaraxu ka dhacay. qarxa waxa uu ahaa mid xoogan lagana maqlayay qaybo badan oo kamid ah magaalada Muqdisho iyadoo qasaare hantadeed uu u geystay dhismooyinkii ku dhawaa goobta qaraxu ka dhacay. goob jooge ku dhawaa goobtii qaraxu ka dhacay ayaa warbaahinta uga waramay sida ay wax u dhaceen. gudbay laba nin aan saarnaa nin uu ka degay nin uu saarnaa yarkii meesha ku dhintay oo farsamayaqaanka yarkaas mooto sameynay marka markaan ka tagay qarax dhacay qarax markuu dhaco ku soo laabanay meesha waxa yaala hal meeyda iyo laba dhaawac iyo ilmo kale oo guri xaafadda ku yaala oo u tagay baawrka qolofkiisa waxsaas si buuran kama dhicin alxamdulillah jimcadeed maanta dadku waa kala maqnaa dhimashada dhaawac artay meeqo mar dhimashada hal qof dhintay saddexna dhaawac waa baabuurka nuuco ah baabuurada oo hadda soo baxay ii sheeg marketu mal baawur ma saarnaa soo baakina baawurka qof saarnaa waa socdo qof saarnaa hal qof saarnaa taliyaha ciidamada dambi baarista ee CID-da General Abdullahi Xasan Bariise oo isna tagay goobtaasi markii qarax uu dhacay kadib ayaa warbaahinta la hadlay. sida aad hadda u jeedin baabuurkan wuxuu ahaa nooca loo yaqaan Karib konton iyo wax dhibaato oo intaas dhaafsiisay waa ku dhintay haddana jidkaan nadiifinaynaa marka xaaladda idinkaaba u jiifiinba nasiibanaag intaas saasaana wadada Makaal Mukarrama oo maanta qarax uu ka dhacay waxa ay marin muhiim u tahay madaxda dawladda iyo wafuudda kale ee caalamiga waxaana muddooyin ku dambeeyay ka muuqday dib u dhis xoogan wadadaasi kaasi oo salka ku haya isbeddelka nabadda ay ka jira